Siribada oo sidoo kalena loo yaqaan buurta Aadam calayhi salaam waa buur saddex xagal fiiqan ah. Dhirir ahaan waxa ay gaaraysaa 2243 mitir. Waxayna ku taallaa bartamaha jasiiradda Sri Lanka. Fikta sare ee buurta Siribada waxaa ku yaala macbad ay ku xiran yihiin bulshooyin kala haysta caqiidooyin kala gidisan. Halkaas waxaa ku yaala raad muqaddas ah, kaas oo caan ku ah dhagaxa weyn ee buurta dul saaran oo isna dhirirkiisu yahay 1.8 mitir. Dadka Buudiyiinta ahi waxa ay rumaysan yihiin in raadkaasu yahay lugta bidix ee Buudha markii uu booqday waddanka Sri Lanka. Ayagoo u arka in meeshaas ay astaan cibaado u tahay, waxay iyagu ilaah ahaan u aaminsan yihiin oo ay ugu magac dareen Saamaan. Sidoo kale bulshada Taymilka ee diin ahaan u aaminsan Hinduuska waxa ay rumaysan yihiin in dhagaxaasu yahay raadka waxa ay ugu yeeraan ilaaha Shiva. Laakiin qaar ka mid ah bulshooyinka Muslimiinta iyo Masiixiyiinta ee ku nool Sri Lanka waxa ay tilmaamaan halkaas in ay tahay meeshii uu ku soo hoobtay ama uu ku soo degay Nabi Aadam calayhi salaam markii ugu horreysay ee uu lugtiisa dhulka dhigay isla markaana jannada laga soo saaray. muddo aan ka yarayn 1000 sano ayaa sanad kasta dad tira ahaan kor u dhaafaya kumanaan ruux ay fuulaan buurtaasi dheer dusheed si ay u soo booqdaan goobtaasi muqaddaska ah. dadka booqanaya waxa ay isugu jiraan dhammaan dadka kala haysta caqiidooyinka kala duwan ee ka jira waddanka Sri Lanka. inta u dhaxaysa bisha December ilaa bisha May sanad kasta dadku aad ay u booqdaan halkaas. laakiin bilaha kale aad ay ugu adag tahay in halkaas ay fuulaan maxaa yeelay waxaa jira roob xooggan, dabaylo iyo ceeryaamo daran. muddooyinkan dambe way ka yara sahlanaatay in buurta la fuulo maxaa yeelay waxaa la helay biskuleetiga buuraha lagu maro. laakiin waqtiyadii hore aad ay u adkayd, dadkuna waxa ay adeegsan jireen aalado qadiimi ah sida jaranjarooyin xargo iyo qoryo laga sameeyay. sidoo kale hadda dawladdu waxa ay samaysay jaranjarooyin la dhisay oo ay dadku ku lugayn karaan. maadaama ay sahlanaatay in buurta la fuulo, waxaa kordhaya tirada dadka halkaas booqanaya sanad kasta. halkan oo ah buurta dusheeda dad ayaa degan oo ku nool. laakiin meesha ay dadku degan yihiin iyo halka uu macbadku ku yaallo aad ay u sii kala sareeyaan joog ahaan. meesha uu macbadku ku yaallo ayaa ah meel jooggeedu sareeyo. buurta iyo hareeraheedaba waa meel barwaaqo sooran ah. waxaa ku yaalla dhir noocyo kala gidisan ah, mar kastana iska cagaaran. dhirtaasi waxaa ka mid ah kuwa leh miro qaarkood aan dunida kale lagu arag. sidoo kalena biyo ayaa qulqulaya buurta hareeraheeda. xilli kasta waa meel barwaaqo iska ah. waxaa la sheegaa in Nabi Aadam calayhi salaam uu ku soo degay buurtan dusheed. xaaskiisa Xawana ay ku degtay dhulka hadda loo yaqaan magaalada Jidda ee Sacuudi Carabiya. kadibna ay ku kulmeen dhulka Carafa la yiraahdo. waana sababta loogu yeero Carafa. qisada qaabkaasi loo wariyay ma ahan mid ay isku waafaqsan yihiin culimada. waxaa jira qaar ku adkaysanaya in Nabi Aadam uu ku soo degay dhulka Xijaaz la yiraahdo, Xawana lagu soo dejiyay dhulka Hindiya. قيل بأنهم أنزلهم الله عز وجل متفرقين، أما حواء ففي الهند، وأما آدم أو العكس في الحجاز، وإبليس قيل أنزله ما أدري والله نسيت الآن حسب ما يذكر المفسرين. ثم التقى آدم وحواء في منطقة عرفات، قيل سميت بهذا من ذاك الوقت. si kastaba buurta dheer ee ku taalla waddanka jasiiradda ah ee Sri Lanka ayaa bulshooyin diimo kala duwan haysta ay aaminsan yihiin in halkaas ay tahay meesha uu Nabi Aadam ku soo degay, nabadgelyo korkiisa ahaatee. wayna barakaystaan sidaan horeyba u soo sheegnay. intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixintan tan iyo warbixinta xigta. sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddii ay warbixintan ku xiiso gelisay like saar adiga oo mahadsan. aragtidaadana nala wadaag. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. nabadiina iyo nolol kulanto oo xiiso badan. amaana Allah.